Soomaaliya waxa ka jira fiiri mustaqbalkii dadka iyo jiritaankii dadka iyo madaxnimadii dadka ayaa laga tijaaraysanaya oo laga ganacsanaya dad baa ka ganacsanaya waxyaalaha aan la yaabay maskaxdayduna la weynaatay waxa kamid ah ha ka tijaaraysteen ha ka ribxeen mid alla midkii madaxnimo ka raba Soomaaliya inuu madax ka noqdo adduunyo u socda dal iyo dad inuu u shaqeeyo midna ma rabo macruuf way waa la yaqaanaa ha ka shaqaysteen haday rabaan laakiin waxaan la yaabay waxa la soo dooranaya aqalka baarlamaanka waxa la soo dooranaya madaxweynaha mid kasta waa la dhaarinaya kitaabka gacanta loo gelinayo waxa ay wallaahi waxa igu billaahi danta dadka dalka inaan ka shaqeynayo inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un wa kadib waad ogtihiin dhammaantood dadkaasi inaysan dal iyo dad iyo diin u shaqeynayn say dad iyo dal iyo diin ugu shaqeynayaan maxay ugu dirirayaan waa lagu bari lahaay kala noo qabaa la oran lahaay maxay lacagta lagu bixinayaa $1 milyan $500 maxaa lagu bixinayaa maxaa $200,000 lagu bixinayaa maxaa $500,000 lagu bixinayaa kursi leesha lagu bixinayaa ma waxa lagu bixinayaa waxa igu wallaahi waxa igu billaahi waxa danta dalka ma shaqeynaa kama shaqeynaa abadan kama shaqeynaa هذه الدنيا waxaad leedihiin dadka maxaa sidaan u galay nin baa wuxuu yiri baa la yiri sidii loo galay asna ma u guray mindha wuxuu arkay tacbaana oo mataqaana jiitamaysu arkay marka wuxuu yiri sidii loo galay aan loo dhaqaalayn asna ma u guray buu yiri ileen waxba laga heli maayo dalkan waxa indhahaas u yeelay aad u jeedaan waa adduunyo jacayl waa xukun jacayl weey haddana laba qodob baan maanta idin sheegaya dadkii maalka lahaan jiray oo Soomaaliya maalka ku lahaan jiray masaajidkiina inta ku jirtaahay dib u raaca konton ama 60 ama 70 dadkiina jira dadkaad soo gaarteen oo magaaladan Muqdisho xoolaha ku lahaan jiray hal xad oo nool oo adduunyadii haysta oo maanta nool mood garanaysa ma jiraa qof nool oo xoolihii maanta haystaa oo la yiraahdo waa hebel waxa la leeyahay sartaan hebel baa laha dhulkan wareegsan hebel baa laha hoteelkan hebel baa laha xaaji hebel baa laha taajir hebel baa laha caruurtiisii baa la kala bixin waayay 24 saac kuwii ay xoolaha uga tageen ayaa la kala saari waayay maxaakiimta saas u dhooban oo ayaga la kala bixin waayay dadkii madaxda ahaan jiray xagga madaxnimada laga soo bilaabo waagii madax dalkan laga noqday Cabdullaahi Ciise Maxamuud ka soo bilow ilaa Cabdullaahi Yuusuf Maxamuud ugu dambeeyay wixii ku nooc ahaa hal qof oo nool oo maanta adduunyada saaran waad garanaysan ma jiraan maalkuna waa kaasa mansibkuna waa kaasa ilaahay baa marka dadka u digay subhanahu wa ta'ala ilaahay dadka waa u digay Allah subhanahu wa ta'ala adoomadiisa waa la hadlay aayadii ay ku akhriyay waxa kamid ahaa i'lamu fiiri intan adduunyo loo sheegina waxa la yiraahdaa i'lamu war ogaada cilmu u yeesha soo jeesta arintana la socda anna mal hayatu dunya ha maxay tahay inta la ku sheega fiirsha la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun baynakum wa takathurun fil amwali wal awlad shantaas wa takathurun fil amwali wal awlad shantaas waa la'ib ciyaar la'ib ciyaalku markay dheelaan oo soo daalaan daalkii markay soo ciyaareen ciyaartii wax gacantooda ku jira miyaa la arkaa waxba kuma jiraan lahwiga waxa la yiri odayaasho kale shaxda iyo dumnada iyo markay dheelaan markay ka soo kacaan wax gacantooda ku jira miyaa la arkaa wasiinatu wax la isku qorxay wa tafakhuru meel waxaad ku faantaan ana la dheera ana saana ana qabiilkaas ka dhashay ana wa miya maalka iyo xoolaha isku faantaan waa intaas adduunyadu ilaahay waa u diga marka subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور آيات آخر كذا ساس واي آيات كانوا يحكوا الله سبحانه وتعالى ليش أصبرك على الكاس وحكوا جرا وحلقوا مثالي الله سبحانه وتعالى وحكوا مثالي روب دعي أو عاوز يرسل هي عاوز كنا هراك قال الله قال يرى هذا هذا رواكاس أضاقي عنت الله يوم سايتك الكينا أما واحد من هيا بقبر بالجو وانا يا آيات كان الله يحكوا سبحانه وتعالى فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور بل فيري الله سبحانه وتعالى سؤال هذا الدوم مديس الدنيا يسن إذن كذن كذا بدن إذن كذن سداسا حدنا الدنيا دو مصائب تيري وضعتها حول هل غصيو أمام مدحتني ما هل غصيو كو صافي النقل ما يسي حدنا كو صافي النقل ما يسي مصائب تيري الله سعته مد بقى وحيري
ثمانية تجري على الناس كلهم ولا بد للإنسان يلقى الثمانية سديد ضلك وضل مرة يساوي لازم واحد ولا بد للإنسان يلقى الثمانية سديد ده سؤال لكم معايا حزن وسرور واجتماع